dhalinyarada ururka horumardoon oo ku sugan gudaha Soomaaliland iyo daafaha dunida ayaa deeq raashin soo gaarsiiyay 30 qoys oo danyar oo ku dhaqan degmada Qoyte ee waqooyiga magaalada Burco. Deeqdan raashinka ayaa ka koobnayd bariis, daqiiq, sonkor, saliid iyo timir. intii lagu guda jiray qaybinta mucaawamadaasi ayaa waxaa la hadlay TV-ga Universal xubnihii ururka horumardoon u soo wakiisheen gaarsiinta qoysaska danyarta ee loo qoondeeyay raashinkaasi inay kaga baxaan bisha barakaysan ee Ramadaan. xubnahaasi wakiilada ka ahaa deeqdaasi oo ay ka mid ahaayeen Daahir Muuse Cawaale, Cabdirasaaq Yuusuf iyo Suldaan Cismaan Sheekh Ibraahim. sidoo kale qaar ka mid ah qoysaska danyarta ee loo qaybiyay raashinkaasi ayaa ka hadlay dareenkooda deeqda maanta la gaarsiiyay. ugu horeen inta yare magaranaysa deeqda ayaanu sidnay waxa loogu talagalay dadka Sooman 30 qoys ayaa loogu talagalay waxaana soo ururiyay dad dibadaha iyo gudaha u jooga magaranaysa waa in yar oo dadka danyarta ee magaranaysa si ticiifinta liita loogu talagalay insha Allah taala ururka horumardoon ayaana soo ururiyay daafaha wadanka dibadiisa iyo gudaha meel kasta joogan insha Allah waxa la rajaynayaa himilo ka sii waaweyn tan waa bilowgii wax barasho tahay haday biyo tahay haday riig tahay insha Allah dadkii meesha intan keenayna Ilaahay wax khayr leh oo ka badan ha ugu bedelo waxaan rajaynayaa ganacsatada iyo dadka magaranaysa horumardoonka Axmed Xasan iyo Gashabuurtiisu inay ogaadaan in la bilaabay deeqdan mucaawimadan oo ka timi dad in isu tagay oo mutadawiciin ah aqoonyahan iyo dhalinyaro iyo waxgaradba leh kuwaas oo ku kala nool daafaha dunida annagana noo soo wakiilateen inaanu gaarsiino dadka maanta waanu gaarsiinay 30 qoys maanta raashinkoodu waa halkan isa saaran reer kastaaba kidka halka isa saaran buu qaadanaya insha Allah taala waxaan leenahay Allahu jisaakum khayr ilaahay khayr idinku bedelo waxaan halkan hambaliyo iyo bogaadin uga dirayaa ururka dhalinyarada horumardoonka Axmed Xasan iyo Gaashaanbuur dibadiyo gudaba waxaan maanta geynay degmada Qoyte 30 qoys ee danyarta ay ugu tala galeen afurada haaf bariis rufuc sonkor rufuc daqiiq iyo 5 kilo timir iyo caagad saliida waxaan leenahay ilaahay meesha ka soo saarteen wax khayr leh idinku bedelo deeqdana ma ahaan doonto tii ugu horeysay himilada ay higsanaysan iyo rabitaanka ay higsanaysan ilaahay idinku garab galo magacayga saddexaad waxa Axmed Cabdilaahi Weyd waxaanu sidneeyay mucaawamada ay qurba joogiyo wax wadanka joogaaba ay soo ururiyeen insha Allah tii ugu dambeysay waxaanu mahadnaqaynaa dadka noo keenay raashinka afurta ayaanu mahadnaqaynaa kuwa noo keenay dawladda nooga soo diray garab galeen ugu soo hagaajiyay ee si sharaf leh waxaan quruxda badan loo siiyay ayaa Ilaahay mahadaare dadka ay ku deeqeen Ilaahay inaan dhadhaman shifale iyo barwaaqo iyo abaal marin iyo abaal gud Allah iyo kana hasi. ururka dhalinyarada horumardoon ayaa u taagan horumarinta deegaanada ay ka soo jeedaan dhalinyarada ku bahawday ururkaasi. Ali Daahir Maxamed Boos, TV-ga caalamiga Universal, Burco.